boqolaal reer oo haya oo lulaya calanka Soomaaliya calanka SSC waliba calamo kala gadisan ee maamulada dalka Soomaaliya ayaa isugu soo baxay barxadda Sharon Wood ee Columbus Ohio kuwaas oo muujinaya dareenkooda ku aadan sida ay ugu qanacsan yihiin guulaha reer SSC ay gaareen ee ku aadan hadafkooda helidda nidaam madax bannaan iyo ismaamulidda deegaanadooda oo ay markii hore kala kulmi jireen caqabado amni iyo kuwa maamulintaba ujeedada ugu weyn ee isu soo baxan waxaa lagu sheegay dhiirigelinta dadkii waqtiga iyo dhaqaalaha ku bixiyay in muddo ah in dadka Sool Sanaag iyo Cayn ay ka madax bannaanaadaan Somaliland iminka waxay muujinayaan dareenkooda rabitaankooda iyo hadafkooda ku wajahan maamul la mid ah kuwa Soomaaliya inta badan dadkii ka hadlay waxay ka sinaayeen in dadka deegaanadaasi ay u dhimanayeen Soomaaliya mid ah ayna ku waayeen wiilashooda iyo gabdhahoodii isla markaana ay sii wadi doonaan ilaa ay si dhab ah uga xaqiijiyaan Soomaaliya mid ah mahadsantihiin sida sharafta leh qiimaha leh quruxda badan ee aad uga soo qayb gasheen xafladan aad iyo aadka loo soo agaasimay waxaan u jeedaa dhammaan ummaddii Soomaaliyeed ilaa raas Kaamboon ilaa raas Casayr waxaan u jeedaa dhalinyaradii Galmudug waxaan u jeedaa dhalinyaradii maxaan ku raadayay Hargeysa iyo maxaan ku raadayay Boorame waxaan u jeedaa dhalinyaradii Baydhabo Jannaay Zeyster Baydhabo waa joogtaa Kismaayo Zeyster Kismaayo waa joogtaa maasha Allah Muqdisho iyo Xamar wala wada aad iyo aad baj yaa Jawhar Yusuf ka jooga marka cadey aad iyo aad insa ruuxanti waxa la oran karaa dhammaan ummadii Soomaaliyeed maanta halkan way ku dhan tahay waxayna ugu dhan tahay ma ahan qabiil ma ahan qoys waxay ugu dhammaystiran tahay waa midnimada ummadda Soomaaliyeed inay muqaddis tahay intii maanta uma aynaan iman inaynu cid cambaarayno uma aynaan iman inaynu cid wax ka sheegno waxaynu u nimi inaynu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u mahad celino marka hore Ilaahay subxaanahu wa ta'aala alxamdulillahi rabbil caalamiin culayskii faraha badnaa ka qaaday dadka reer Sool Sanaag iyo Cayn ee ay ku jireen muddada dheer dhibaatada fara badan haysatay hal doorkoodii la leynayay haweenkooda la xidhayay awlaadooda la qafaalanayay guryahooda la duminayay waxaynu odhan karnaa waxay ahayd muddo dheer oo soo martay reer Sool Sanaag iyo Cayn Muuse down ina kaahin down heego down maasha Allah aad iyo aad baan salaamaya dhammaantiin waa mahadsantihiin salaamu calaykum reer Sool guul bay gaareen marka Muuse rasaa hore u sheegnay dambiyada dagaalka dadka lagu qaadi doono ka mid yahay shacab badan buu laayay xisaab la'aan ma dhacaysa shacabka dhiigooda waa lagu xisaabtami doonaa cid kasta oo qof shacab oo rayida dishay oo xoogii awood u sheegatay waa lala xisaabtami doonaa ninkuu doono ha ahaado meesha ama Djibouti joog ama Soomaali joog ama Mareykan joog meesha doonta joog qofkii qof Soomaali oo shacab dhiigiisa daadiyo waa lala xisaabtami doonaa wax badan baana ku celcelinay kacdoon shacab weyne cid caburin karta mar waa la caburin waana soo banaan baxay aad baanan Ilaahay ugu mahad celinaynaa guushaas la gaaray qabiil lama aha waa maamul faajira marka waxaan hadda siinayaa Maxamed Qadari insha Allah xafladan horta waxa iska leh iyo guushanba alxamdulillah Ilaahay baa waxana noo soo siiyay guushan hebel down iyo waxaasna waa ka baxnaa adeer soo waqtigaas waa soo dhaafnay iyaga barooranaya
laakiin guushan waxa iska leh iyo halgan kamba xaqiiqda ay dhabta ka ahaydna guuto koowaad waxa la dhaho guuto koowaadna way siqaaniin oo maleynaya dhalinyarta iyo bahalkii dumarka baa iska leh waxa kale dhan waa la soo khasbay marka waa maasantiin guuto koowaad waa maasantiin until the end qofkii laxdana waa leexinana cabdifatax saalba u dhiibayana oo xafladda soo qabanqaabiyey akhyaarta waan salaamaya aniga hadalku ma tala gelinin I just want to say a few things waxaan leeyahay horta marka hooysa dhalinyarada xafladdan qabtay saaxiibkii qadaari ee ugu horreeyay intaan la fadhiday intaan la iloobo oo maasantiin marka waxaan rabaa wax sheego snaabkii marka soo geli flyerkan khaatuma waxa la dhahay maxaa ka wadaan iyo qoloyin aan isku haybnahay iyo qoloyin baa snaabkaas hayaan maxaa ka wadaa marka intaas ayaa rabaa sheego meeshaan dadkaas anagu qof kastoo la gardaran yahay had iyo jeer waa taageeraynaa maca falastiin baa taageernaa iyo dadkaas dhaqaxwa aan nala wadaagin marka intaas sheegaya waxaa kaloo sheegaya dad waxaa u jeeday flyerkan oo khaatimo isku sawiraayo oo ka raadinaya mataqaana campaign waxaa u jeeday xafladan yaa la sarin kuwa shalay qaniisada ilmiina u keenayay baa idin gaadaya inta soo gaada assalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي ما مسكله هل كان واحد بقلبته والدبالدق هل كان واحد بقلبته الدبالدق واحد أنت ويا كبداً قفك اللي هذا وحكلو كهذا يا تاس مركب واحد رباه إن دتكو كفي تجنا هذان لمبرتو وحن بلينا رئيس قاتمه جوش تاريخية كجارين تقالدي لحية تمن كسنة أي كسو شرين وحن لنا هنبليو waxaan leenahay RSC hanbalyo oo hanbaleynayna waa ku shugreyna ayagana waxa laga rabaa guusha inay ku shugriyaan waxa laga rabaa inay guushaas hantaan waxaana aaminsanahay inay ku hanan karaan midnimadooda reer SSC hadday midaysan yihiin cid wax ka qaadi ka dhamale inay dad dulmaan ma rabno haddii ilaahay idmo in la dulmo dulankii way diideen dulankii ay diideen inay dad ayagu ku sameeyaan raalli kama noqonayno ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay guushooda u xajiyo ayagana waxaa laga rabaa midnimadooda iyo horumarkooda iyo wanaagooda inay ka tashadaan gacanta ku haystaan way hanteedeen inay xagsadaan baa laga rabaa hambalyaan leenahay mar kale reer oo haya aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan inii sheego anigu waxaan tegey magaalada laascaanood bishii May baan tegey reer oo haya waxa loo yaqaanaa inay yihiin waxa la yiraahdaa waa dadka qaybta ka ah guusha laga gaaray laascaanood waxaana loo yaqaanaa reer hoos ka sii baa loo yaqaanaa haddana waxa layna ka rabaa weli way taagantaa arrintii hoos ka sii waa soconaysaa dagaalku weli waa taagan yahay haddii uusan muuse ka waantoobin muuse biixi qabiil ma ahan muuse qabiil ma ahan qabiil fiican dad ehelu sharafa ayaa gobollada degan muuse wuxuu marsiinayaa reer SSC wiilashii muuse sacad muuse iyo nimanka la yiraahdo subeer awal inay sheegtaan qabiilooyin kale oo reer SSC ah halkaasuu marsiinayaa reer SSC reer Somaliland wuxuu marsiinayaa culimmadii ugu waaweyneed Somaliland oo ugu sharafta badnaa oo qof walba oo Soomaali uu dhageysanayay oo guri walba oo Soomaaliyeed ka daarayd Sheekh Dirir iyo Sheekh Mustafa markay soo galaan raadiyaasha in la damiyo halkaasuu marsiina xaqiiqdu taas waaye sababtu waxa waaye dulankii bay raalli ka noqdeen way ka aamuseen inay ka hadlaan bay annaga dhahayna muuse bareeg waxa u noqday reer qaatuma u noqday bila bareeg buu ahaa nimankaas bareeg u noqday gaari damba laba ambanayo meel qabiil damba ma layn doono waa maamul ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliyeed buu hadda noqday madaxweynuhu leeyahay waxa weeyaan waa maamul way jira maamul kale baana wax kala dhaxayaan korneelka siin doona fanaankii Aadan Shimberleys iyo fanaanin kale noo jooga markanool sano بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر SSC قول بنتلان قول سومالي وين قول ضمان انت كفر حدي قوشان ومن نيروبي من تشيكتشيكا من جبلان من جدو من مقديشو إلى قربة وعليا همبل يضمان انتي سوهو يسي انت كفر حديبا
xafladii nooga horeysay shucuurtayadu waa garanaysaa habeenkii suuka ayaa dambeysay caaway waanu ka bedelannahay Soomaali caawa waa ka bedelan tahay dabaaldeg baanu ku jiraa mid tan ka weyna 9 bisho State House ka qabsoomi doontaa oo aynu tagi doonaa lagu saarayaa calanka qaatumo SSC waxaan halkan ka dirayaa fariin adag baan ka dirayaa waxaan u dirayaa maamulka haraadiga ah ee Muuse Biixi Cabdi wiilasha inta hadhay inuusan dab ku shubin oo uusan dhamayn horay baan nooga dignay maalintuu wiilasha yaryar waalidkood ka soo qaldayay oo caaway oo jimcihiisii dagaalka u dhacay kuwa caws cunayay la helay caawa la helay oo la keenay waxaas waa wiilal Soomaaliyeed wayna damqaysaa damiirka iyaguna siin mayo wiil Soomaaliyeed inuu dayac u dhinto waxaan leenahay caqliga ha shaqeeyo ummadda ku nool waqooyi galbeed waxaan leeyahay Muuse qabta Muuse ma miyir qabe Muuse qabta way salaamaya dhamaan كووادا شركة سكالة رجعنا شكينا يا وحي شجعنا ملها سمسم بانودي بياتر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي محمد هذه آد بندين سلامة يا دمانتين كسو قيب قال رجع يا دمر با مروين يمضن يال حفلة دم بلارن آد قروح بدن اللي قلت هاجر يو خاتو إن SSC خاتم استاد الصومالية ما شاء الله ما شاء الله قوش ما أنت قال خاتم استاد الصومالية SSC خاتمه وحوي تمانت دول كل وحرية أنا أقول ما أنت بالبنك سكيا ما 18 وين شوقي هؤلاء يقدم بيا وان كقيب قالي ما شاء الله تبارك الله إلهي نوي نبض كالي وحن ما أنت هالكن وجهم بليين يا دمان Soomaali da oo dhan oo ka soo qayb gashay halka kan waan leeyahay soo dhawaada iyo dadka u dhashay deegaanka Sool Sanaagan Cayn baan leeyahay hambaliyo waxaan hambaliyeenayaa madaxweyne ku-xigeenka isimada qaaliga ah jamaahiirta Ilaahay ha u naxariisto ka soo ku dhimatay Ilaahay jannadii Firdawsaha ka waraabiyo waxaan leenahay inta kale ku dhaawacantay Ilaahay ha u boogadhayo waxaan leenahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta guuliyo gobonnimaan joognaa maanta waan ka samraynaa intii naga dhimatay waayo maanta dalkeennii baan hantinay gacanta aan ku haynaa yaa xoreeyey mataanaha Buntland iyo Khaatumo walaalaha iskaashaday ma sha Allah tabaarak Allah waxaan leenahay halkan waxaan ka hambaliyeynaynaa oo maxaan ku dhahay xoreeyay maanta Sool Sanaagan Cayn walaalaha mataanaha waa Buntland iyo Khaatumo isteeda Soomaaliya guuliyo gobonnimo isimadayada waxaan leenahay guuliyo gobonnimo meel ay joogaanba mataanaha Buntland Khaatumo waligay ma ilaabay haddana aan uga kaymi guul baan leeyahay gacan sare waa intaas oo aan maanta uga sii dhawaano gacantana waa ku haynaa ma sha Allah tabarakallah guul baan leeyahay maanta waa faraxsanahay
maanta waa faraxsanahay guul khaatumo guul baddaan guul mataanaha baddaan iyo khaatumo waa walaalo isgarabsaday إن شاء الله بإذن الله الكريم يا مقعة D5 waxaan ku soo dhawaynayaa iminkana walaasheen nadiira anigu waxaan bal waan faraxsanahay waxaan ku hadla xitaa ma garanayo maanta wallahi inaanan garanaynin bilaahi marka waxaan leeyahay nadiira ku soo dhawow adiguna fakarkaaga iyo farxadaada maanta aynu halkan dadka kula qaybsanayno thank you samsamay walaal bismillaah 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 Soomaaliya Sol sanaan aan cayn khaatuma istayd guul guul khaatuma istayd guul Puntland guul al Soomaaliya guul dhammaan waa idin mahad celinaynaa ummadda Soomaaliyeed sida quruxda badan uga soo qayb gashay celebrationka khaatuma istayd of Soomaaliya dhammaantiin waa idin mahad celinaynaa marwooyinka quruxda badan iyo dhalinyaradan quruxda badan dhammaantiin waxaan idin leenahay guulaysta idinkuna aan wada guulaysanay ummadda Soomaaliyeed inta qalbiga wanaagsan inta nabadda jecel inta samaha jecel ee nala guulaysatay ee qalbiga nagala oyday imikana nala guulaysatay guul baan leenahay khaatuma istayd guul again guul waxaan idin leeyahay ummadda Soomaaliyeed dulmiga hala iska ogaado waa guulaysanay guusha khaatuma istayd of Soomaaliya waxay u dhigantaa kulli inay Soomaaliya wada guulaysatay ma aha inaan anagu kaliya guulaysanay Soomaali baa guulaysatay waxaan xaqiijinay midnimada ummadda Soomaaliyeed ayaanu xaqiijinay waxa weeyaan guul baan leenahay ma jirto wax la dambe go'aya ma jirto nin dambe miis garaacaya ما جرت الصومالية صومالي لامبا على وضع هذا السينية نامور وحاسي وايدا ماتي وصاع أفجرني أفكسا صوماليا وحاني وشاعينا إنا يأرمها سيسوا حرمين قف الله على قفكي أفكي سلقا مغنى ونغر يدبينا قرن تاسانو يدين شاعينا قفك أفكي سلقا مغنى صومالي لامبا على وضع هذا السينية ودبينا قرن سوما قنصنا مركا دبينا قرن بينوا قنصنينا هدي إلهي إدمو Soomaaliya ha noolaato midnimada ummadda Soomaaliyeed ha jirto idinkuna noolaada dadweynaha halkan galabta isugu yimid hal qodob baan rabaa inaan ku darsado siyaasad lama rabin in laga hadlo oo celebration laakiin hal qodob baan kaga faa'iideysanayaa munaasabadda maanta intii dagaalku nagu socday waxaanu maqlaynay madaxweynaha dalka Soomaaliya inuu yiri waxaan u magacaabay Soomaaliya Somaliland nin la yiraahdo عبد الشكور ما مقعيس عبد الكريم قولت أنا قارن كاس لما قبت مدحوينه لما قبت واكوش شاقني أرمها هوصلة يسقط السنة هلا جوتشيو والسلام عليكم هالمر عالك الصومالي كان قاتم يستذكر عنو قادنا هلا وذي استاجو وعربا إنان إدين شاقو هل كان وحان أولي مادني إنانو كدبال دقنو قوشي معمولك قاتم يستد أو كجاري maamulkii SNM ee ku soo duulay dhulkooda maantayto waxaanu joognaa guul waxaan ka hadlaynaa kaliya waa dhismaha maamulka qaatuma Soomaaliland dambe iyo Muuse Biixi dambe soo abaabulo ma jirto waa laga yaabaa dadkaas in maskaxda laga xoreeyo social media aad baan u daawadaa dadka waqooyi jooga waa dad maskaxda laga dhibaateeyay waxaa arkaysaa oday weyn oo ku haya Muuse nuclear rid meesha nuclear Muuse rida ma haysto موسى قرية وجوين وساك وهايستا وبيكا إمواي بيكا إموايستا موسى ملكم مجاري كرو وحاسودا وين يا فنانك إن هذا الشمبرليس هالمر استاجه بسم الله وجوهرين رقاتمو وحنلاقي هاي همبليو وأوجا سومالد وحكون ما فلي عنتي مموجا ورث سامها وحلا الشمبرليس waxaad u halgami jirtay cid kasta oo la dulmo Soomaaliyeed marka waad ka aamusay baa la halganka ree SSC iyo qaatumo dabcan markaan arkay maxaa la yiraahdaa maamuladii waaweynaa oo inkirahayo la dagaalka kuma jirno gadaal baan u yareystay oo waxaan war meesha ama loo dhamayn ama loo socon hambali aan leeyahay ree SSC iyo qaatumo
waxaan sii deynayaa markaa hees cusub oo la yidhahdaa qaatumo waa qaran aan la qaban karin waa cusub tahay DJ Sida qaatumo wata alankay qotmi soo qaatumo wata uday qaylayn axya weerad lagu warday iska qaaday heeryadii وانا قرن اول وي قطوما وتا على كي قطمي سوقتوما وتا بدي غير احيا وير النبوردي اسكا قادي هيريدي وانا قرن اول وي waxaan tirinayaa tix gabaya gabayguna wuxuu iskaga fiican yahay xoogaa inaad korka ka goosato kollay arrimihii nimankaas sameeyeen hoos anigu ugu degi maayo laakiin kor baan ka goosanayaa dariiq bay murtidu leedihiiyo dowl la mariyaaye dooddeedu waa iga xidhnayd 10 diraacoode gooja cadde dabkii laga shidaa doojay khaatumo ee andaliishu waataa tix gabay iga dayayseene nafsaa idin dardare iyo dabayl wadata duufaane darsigaan idiin dhigay miyay dunidu faallaysay
qaar daqaqamaya iyo adaad doontay raan jarise darandoorisoo booba culus kuguma daaduumin daad baydin qaadiyo cirkoodda ay aroortiiye sowdoolli maad noqon markii dani run kuu sheegtay dagaalkii sunaamida markaan kugu dayaysiiyey sowdaqarradii kugu dhiciya doogti kuma hayso darwiishiyo waxaa idin bursaday dirciyadii soo leh duulaanka nimankii ku yimi darwiishiyo waxaa idin bursaday dirciyadii soo leh duulaanka nimankii ku yimi sowdibuma laaban harti doobiyayiyo waxaa ku helay ciidankii danabe dabaabaadka culusiya markaan kaala hadhay duunyo sow dawladdii been ma noqon aad dawarinaysay duubkaad xidhnaydeen miyaan dalow ka tuuriyeeyey diiwaanka sow laguma qorin darajadan gaadhay waad mahadsantihiin waa maalin farxadeed waa maalin dabaaldeg waa maalin aad iyo aad u weyn run ahaantii waa maalin midnabadii soomaaliya la xaqiijiyey waa maalin jamaahiirta ay u eg tahay inay dabaaldegto jamaahiirta 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 soomaaliya soomaaliya SSC khaatumo SSC khaatumo muuse juudaan muuse juudaan odaygii muuse juudaan ahaa waxaan u malaynayaa warooy maanta oo kale iska midha doonan lahayda muuse maalintii uu laascaanoo doortay inuu ku xasuuqo dhallinyarada runtii inuu midha doonan lahaa baa u dhaantay xaqiiqatan annagu waxaan rabnaa xafladdan waa xaflad soomaaliyeed waa xaflad soomaali oo dhan oo ay ku damaashaadayso waa xaflad aanan la kala lahayn waa xaflad midnimada soomaaliya u taagan halkaa waxaad ka arkaysaan dhammaan calamadii soomaaliyeed oo dhammaantood hoos hadhsanaya calankeenna buluugan ayaad arkaysaan halkaa waxaa ka muuqda calamadii mataanaha soomaalida puntland iyo SSC khaatumo waxaa kaloo iiga muuqanaya calamadii DDS waxaa kaloo iiga muuqanaya calanka Jubbaland waxaan kale oo arkaa calanka Hiiraan State Galmudug State Hirshabeelle State iyo caasimadeenna bilan ee Banaadir madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaan rajaynaynaa inuu ku guulaysto dagaalka uu kula jiro khawaarijta down xasan sheekh maxamuud waxaan idiin sheegayaa soomaaliyey waan ogahay inaynan la dhacsanayn siyaasaddiisa laakiin waa madaxweynaheenna waannu toosinaynaa wixii uu wanaajiyo waa ku ammaanaynaa wixii uu halleeyana waa ku shaabugaynaynaa soomaaliya midnimadeedu maanta waa la xaqiijiyey maanta no more Soomaaliya iyo Somaliland dambe hambaliyaan leeyahay waa maalin aad u weyn waa maalin qiimo badan waa maalin dhammaan dadka SSC ay aad iyo aad ugu weyn tahay waxaan leeyahay hambaliyo waynu guulaysanay guusha aynu guulaysanay ma aha mid ku timi ciyaar waa mid dhiig loo huray waa mid hanada badan ay ciidda u hoos mareen waa waajib ay guteen hambalyadeedii iyo inuu bogaadinayno halkan isugu nimi waxaan maqlay halkan odayaal muuse dhoon leh war muuse dhoon maahe annagaa dhoon ka dhignay xabaddeedii baa dhoon ka dhigtay baryo ma ahayn 8 bilood buu wax allaale wuxuu haystay uu ku soo wada gooja cadde waxaan waxba ahayn buu kala tegey ninkii aan saa u gallay inaad dhoon tidhaahdaan ma aha midaan meesha u joognay meeshan annagaa khasab kaga dhignay annagaa saa u gallay annagaa wax allaale wuxuu 32 sano ururinayey annagaa kala hadhnay waxaan halkan uga hambalyaynayaa dhammaan ciidamada SSC iyo hiil walaal harti meel kastoo ay joogaan hambalyaan leeyahay
waxaan arkayaa inay samaynayaan inay lahayn waan soo rogaal celinaynaa 25,000 oo wiil baanu ka haynaa muusow meel alaale meelaa ku jeedinana ma garayno hal xabba inaad soo kurdo baanu u baahannahay oo 25,000 wiil RSC aanu u baahannahay inaanu ku jeedino wallaahi burca murangalasiye bilaahi tallaahi waxba haddii ay arkayeen maxaabiistii aanu sida wanaagsan ula dhaqmaynay annaga waxaanu gudanay waajib aanu lahayn laakiin iyagu jileec bay moodayeen hadalladii garaadada ay ku hadlayeen ee nabadda ahaa waa dhaqanka isinku leeyahay annagu sida ku wada daasada faraantiina xidhan mayno koofiyadana xidhan mayno wax allaale wixii ay ka fursan weydo haddii aysan joojin gacmaynta ay wadaan wax allaale waxay ka fursan weydaanu samaynanaa waxba yaysan la hadhin waxaanu leenahay waanu idin sugaynaa meesha suugigana wasalaamu calaykum waraxmatullahi dhalinyara badqaantaah walaray inta laysu soo baxay buuruhu daryaamaane la bururaaye walaray habla wada bureeqaahe boqorkiyo dhacii xirane uloy ay buraan burtiriyaane walaray inta laysu soo baxay walaray goobile la goodaaye ila dilaba mooy horgal daawal qabanqaabayaasha xafladda tan ee maanta saaka ilaa 8 am halkan taagnaa war haloo sacabiyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin magacayga waa Kawthar waxaan u soo baxay oo halkan u soo istaagay saan garab u siiyo aan u siiyo taageeradayda oo buuxda
walaalaheen reer khaatumo runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay khaatumo ha noolaato wax badan baa la dhihi jiray war reer khaatumo meeye laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay khaatumo oo hal ah inay adduunka ka jirto maraykan ka jirto soomaaliyana laga yaqaano war ma isku raacsannahay intaas khaatumo oo hal ah oo hal calana oo hal qof ah ilaahay baa mahad iskale maanta inaan u dabaaldegayno waa arrin aad ii qurux badan marka insha allah nidaamka cusub inaan u celebrate garayno madaxweynaha cusub ee la doortay inaan u soo istaagno garab siino khaasatan reer maraykan waa fursad aad u qurux badan garab bay nooga baahan yihiin maaha inaan isku soo baxno maanta oo keliya dabcan waxay nooga baahan yihiin dhaqaale nooga baahan yihiin garab bay nooga baahan yihiin waa u taagannahay har iyo habeen marka waxaan codsanayaa halka dadaalka ha laga sii wado farxadda halka ha laga sii wado saasaa inoo ballana weli hadalkaygii maana sii dhammaysanin waxaan rabaa inay la soo dhowaysaan shakhsi qaali ah oo reer Columbus aad u wada garanayso oo wiilkiiniya oo adunka aad soo saarateen oo maanta ah xildhibaanka ugu horreeyay ee Soomaalida ah ee ka soo baxa Columbus Ohio oo maanta dhahay war xildhibaannimadayda iyo anigoo wada soconna iyo looyarnimadayda annagoo wada soconna waxaan garab buuxa siinayaa si sharci ah inaan garab siiyo Ismaaciil wuxuu dhahay waxaan garab siinayaa Khaatumo sidoo kale runtii wuxuu la dadaalay oo waqti badan geliyay inuu maaragtay meeshan caawa aan maaragtay waqtiga aan ku baashaalayno inuu qayb ka ahaa soo helideedii asagii kaysaba inay waqti geliyeen khaasatan Ismaaciil inuu soo helay barmadka waa arrinaan maaragtay leenahay xildhibaannimadii way shaqaysay waxaan codsanayaa inaa wada sacbisaan ilana soo dhowaysaan Istaadrib Ismaaciil Maxamed welcome to the stage السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاتم نولاتو خاتم نولاتو ما شاء الله عادي عاد بقوم أدعي ولا شيء كوثر ولا لكن كيسي قرنقول رنتي هل كان كقالي يسوق ليين إلى هذا بركي هل كان أنتوا السعودي رنتي أمان يشرف المذيعين وقتي قدام بيا ودريم يا رنتي مسوق عبنية وتو حرامك وريسنا أقوم أدعيه جالية خاتم بوحد ولا شيء وشيء ذا فاضم خاتمه إلى هذا بركي وقف أن مركز تانشان زي المقعد سوق هذا فاضم إله بركيو رنتي هلجن كان مدود السعودي رنتي هلجن كسر الله صومري dadka dhaqaalaha ay ku bixinayaan waqtiga ay gelinayaan waa dareemi kartiin xanuunku nagu hayay runtii farxad waxaan oo haddar heerna taaganahay aan ka fakirin sidii loo dhisi lahaa maamulka bas taasna waa farxad ilaahay ma sha Allah ilaahay oo uga mahad celinayno runtii ilaahay ka sokoona bulshadii runtii bulshada Khaatumo kuwa Soomaaliya jooga oo runtii naftoodii horay ay ku qurbaha jooga oo runtii qaar laabteen qaarna dhaqaale ay runtii habeen iimaan ka daba fariisan ilaahay ku barkeeyana ku amaanaynaa si khaasatan waxa rabaa runtii inaan xuso walaalkay Kaysi Golongol كيسي يا خاتمه ولا مقع إسرائيل هذا رنتي لا لقى بلا هذا كيسي واحد أنا خاتمه كيسي رنتي وانن آديات قيمة وله رنتي هل كان أنتم بلود إلا هذا ما له إذا شيء كيسنني والله وحي إلا سجال يتمكن دول عاك بدنا يجي شيء شخصي أهان تواحد كتر جويسا هلن كليسا هل كان إنه كليس لما كنا دول بيش ليه قاضي كليس لما رنتي تد بدن باكرة هل كان رنتي هبين إيمان كسيحن ولكن ياسين عبدي آدم جافا رنتي لما سو كوبي كردتك markii kulligood runtiina qalbiga ku hayno waa muhiim maanta waxaan ka wada aqoonsi waraaq sida walaasheen ay kawta uga dhawaajay runtii insha Allah eventiga markii dhamaata mugdi noqonaysa waa dareemi karnaa waxaan ku codsanaa dadka inay noo soo raacaan downtown ka City Hall City of Columbus waxa laga taagi doonaa layrarka insha Allah calanka buluuga iyo calanka cadaanka Khaatumo runtii waana markii ugu horeysay dalka Mareykan weligeedba kama dhicin runtii calan maamul mise calan deegaan mise calan magaalo mise calan tuulo laga taago weligeed taariikhda Mareykan ma dhicin runtii taas marka waa farxad runtii sababta ay ku tahay waan u sheegnay halgankan sida loo soo maray dimuqraadinimada la dhisayo horumarka la dhisayo doorashadii dhacday runtii halganka loo soo maray runtii way noo ogolaadeen marka layrarka blue laga dhigi doonaa iyo white insha Allah ka soo qayb gala haddeerna insha Allah walaashi waxaan ku gudbinayaa runtii Kawthar sababta ay ku tahay dhowr waxa ayna hayadooyin aan guddoonsiin doono runtii Casey iyo teamka dhankiisa la shaqeynaya runtii aan guddoonsiin doonaa soo dhawow Kawthar the first qofka ugu horeeya ugu yeeray waxa waaye Cabdi Aadan Geese oo runtii kamid ah dadkii ugu horeeyay Khaatumo aaday markii dagaalada ka socdeen marka Cabdi Aadan oo ah shakhsi Soomaali magaciina laga bedelo loo bixiyay Cabdi Soomaali sida la ii sheegay fadlan ila soo dhaweeya shahaadadaas waxay ka socotaa House of Representative Ismaaciil Maxamed marka Cabdi Aadan ha loo sacabiyo aad iyo aad buu mahadsan yahay waxaa kaloo ku xigo
waxaa kaloo ku xiga shakhsi oo Soomaalida aad wada garanayso oo shahaadadaas micnaheedu ay tahay in uu saboodgareeyay dadka reer Laascaanood ee Soomaali American iyo diaspora inuu maartay isku xiray si loo saboodgareeyo dadkaas magaciisa waxaa la dhahaa Maxamed Nuur Xajiin fadlan ila soo dhaweeya Maxamed Nuur Xajiin haddii uu joogin qofkii u qaadi kara fadlan waa imaanka dha stage-ka محمد نور حجين والله قاعد سعيد باو قاعد أد باو مهسمته هاي إن ولي وحنا كسي سعونينا بحنتي شهادوين كأبال جودك دتكي وقت السوقلي خاتم يستيدر مين هن هاتنا وحيل سودويسان دك قبلها أوريجينا أيام بلالة أو community activist أيام بلالة هلا صعب يساعدين بلا قاعد وجي عصوبة عوار صوب نجينا oo wax badan u soo qabtay khaatuma stage ka soo korsiya picture la gashay xildhibaanka okay waa ka sii soconaynaa waxaan ku sii xijinaynaa Aamina Geele oo ayadana qof Soomaalida u dhaqdhaqaaqda qiimanana kale reer khaatuma marka loo fiiriyo qof ay aad ugu dhaartaan aad bay u maasan tahay waxaan ku xijinaynaa Naciima Baaruud هلا صعبي نعيمة بارود وقبر she's a young community activist أو رنتي مريكا كلها لكن هذا نوضن كذا يعني اللاوينين هلا صعبي نعيمة كان هاي فاطمة أوكي قف كان وقف رنتي عادي قالي مركب خاصة بنا إن مايك كقاعد كوثر مركب ولا شيء رنتي فاطمة خاتم رنتي وهلجن كان رنتي أيدي كيسي اسكمل بيتاجين بلاتاي فاطمة اللي سوري فاطمة خليه فاطمة خاتمكم قاعدين سوري فاطمة الله صعبيو رنتي ما قاعد حتى خاتمة يلبح ذاي حلي خاتمة يلبح ذا واحد وقت اللي قوم السنة فاطمة وحنكرمنا بالمقعين يسكدي سمدام ما أنت يحر نقطة خاتمة إن هاتنا وحيل السودو يسان فاطمة جامعة عادن أو يدنا كمذا قبلها أول دقائق حس بقى أما نستيد في خاتمة ربطينا وحبنا أوقاتها قربنا سيسا هلا سودوية هلا صعبية فاطمة إن فردوس حسن وذا دنك قبلها وحمد خاتمة إن قبلها كده سنتين دستيد في خاتمة دنك قبلها قد بيوقد سين ما قاعد فردوس حسن وذا فردوس حسن وذا فضلا صودا وسي هذا بالقرنت هذا أوقابشت قفكي ربين أوقاذ فضلا استيج كسكر كيسايا أوقاذي إن ولي وانسي والناش هذا بحنت أبال المرنتا وحيل صودا وسان آذن عمر علي هديو سجوجنا وآذن بلاك أما آذن قروح مية آذن قروح وعير رنتي وشخص قالي هلا صعبيو إن هاتنا وحكوا حاجة خضر دلات أصنع قف صومالي مهم وقع خضر دلات والله قاعدة كيسة وقاعدة أتباع ومحسنتهاي إلى سودوي أحمد موسى أسجنا كوميونيتي أكتيفيستي أستاجر دمان صومال أمريكي يا خاتمه وحاكلو هالكن إلى سودوي إنسان شكري دهر ووجد حتى لاس نيم كي بيستيد كلا قد يكتاي شكري دهر سودوي ماذا شكري دهر هلا قاعدة كيسة أو قاضية أتباع محسنتها كيسة آمنة أبي فرح سوكر ستيج كسي أو قاضية شهادة أبا المرنتا هلا صعبية ماما ذا وقت بدن بيجلسي ستيج هلا صعبية إلها بركة أجري حسنا ذا كسي وحقبت كذا سيدو كلنا وحقرب كي يتاجن كورنيل عبد الواحد حسن وأها شخص جوجه الرئيس هذا اللي يشجعي مركي بلامة خاتمة إن مرتا الدجال كقادو يسكعي لسعادة وجذا شخص جوجه الرئيس الدجال هذا كقب قاتب وكمدها مركا رنتي حسود قارو مدنيا هلا صعبية أدي أدبو مسيا هالسيدو كلنا إن ولي واسيس عنا وحن ولي كسيد حجرنا بحنت الشهادوينك ضد بدن بخاتمة اللي رنتي مهمة سيدا دريم سيد إن هاتنا وحيل السودو إنسان ياسين محمد أو رنتي ضد كدنك جناعسي مرتا إلا عكتا كسبت جريء يحوجيسي يوقتي كسبرونتي كسبت جريء ده استيد كان إنه يحدبوا هلا حرية دي سي أدبوا محسنية هاي هاتنا وحيل السودو إنسان آدم فرح ولي واكسي ده حجرنا بس واي هذا وحاولي بيا ميكروفون كإن حلبان إسماعيل سيدو كله وقدر سي شهادوين كإمالة the city of Columbus هدايت سان شاقي waxay noqotay Laascaanood state-ka ugu horeeyay oo aqoonsi ka hela maadaama caawalaydkeedii iyo calamadeedii laga buufinayo downtown-ka marka waxaan rabnaa si gaar inaan maaragtay ugu soo dhaweeyo Ismaaciil suu maaragtay ugu soo dhaweeyo shakhsi ugu muhiimsan xafladan caawa
ما شاء الله كوثر وين كان مهد عليا marka runtii laba waxaan oo dhiman award oo ka socda City of Columbus commendation waxa la dhaho runtii waana dadka ugu muhiimsan runtii in lagu maamuso yani doorka ay ka qaateen halkan kan qaatumo waa la socotiin qofku yahay qof naga qarsoon ma aha walaalkeen Ilaahay barkay kaysa golon gol soo dhawo mar labaadna awardkii ugu dambeeyay runtii kanna waan akhrinayaa actually kan waa muhiim in la akhriyo City of Columbus certificate honor and recognition to Lasa Anod Sol Khatumo for your formation of a transitional state in Somalia. We recognize and commend the community of Lasa Anod Sol for their peaceful elections and the progress of creating peace and stability in the region. On behalf of Columbus City Council, thank you for the contributions of Lasa Anod diaspora in our great city of Columbus, Ohio. Tanna waxa guddoonsiinaya walaalkeen Yaasiin Maxamed. waa waraaqdii ugu horreysay oo maleynaya si official ah runtii oo magaalo mise deegaan ay aqoonsanayaan runtii maamulka soo dhismaday marka waxaan rajaynaynaa Soomaaliya dawladda federaalka iyo maamul goboleed kastana runtii in waxba la harin runtii taageerada dawladda la dhisay maamul goboleedkan la dhisay in qayb laga qaato mar labaad iyo mar saddexaad ilaahay idin barkeeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Khadar Salaad Maxamed kamida jaaliyadda ku nool Columbus Ohio maanta waxaa dhacday xaflad aad iyo aad u qiimo badan oo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool state-ka Ohio ay ku soo dhaweeyeen maamulka cusub ee SSC Khaatumo iyo victory-gii dhacay 25 August ee ahaa midnimada Soomaaliyeed maamulkii dhowr iyo 30 sano doonayay inuu Soomaali kala jaro lagu soo afjaray August 25-keedii ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Columbus Ohio xafladaas bay maanta runtii aad iyo aad ugu dabaaldegtay Soomaalida degan Ohio-na runtii way ka qayb qaadatay xafladaas soo dhaweynta ah maamulka cusub ee ka dhashay geyiga Soomaaliyeed gobolada SSC waxa halkan runtii aad uga qayb qaatay Ohio Somali TV oo bulshada Soomaaliyeed ee Columbus degan runtii wax badan u haya always arimahan Soomaalida iyo jaaliyadda u shaqeeyo wayna mahadsan yihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaamu calaykum waraxmatullaahi magacaygu waa Ibrahim waxaan halkan marka hore uga mahad celinahay Ohio Somali TV halkan waa Columbus Ohio maanta waxaan soo dhaweynaynaa guusha gaartay SSC runtii waxaan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan laankaada haw laakiin muhiimadda waxa weeyaan in aad dadka aad dariska tihiin aad nabad kula noolaato wixii aad haysataan inaad iimaansato intaas ugu muhiimsan oo mar kasta oo maartay ummadda Soomaaliyeed maalin kasta aan qoortu isu galin dhalinyaro oo halka maartay lagu leedo waa maqlaysay ninka la yiraahdo Prime Ministerka Ethiopia markuu yiri dhul baan rabaa xoog inaan maartay ku qaato tikad aan ku helo xoog macnaheedu waxa weeyaan 120 milyan baa darisidin la marka inaad aad u dhabta u gudubtaan oo waxa la rabo waxa Soomaalida in u gudubto xaqiiqda oo maartay dhibaatada iyo waxa soo dhan la iska dhaafo ayaa wanaagsan marka waxaan ku soo gabagabaynaa meel kasta aad joogto laan ku ahow laakiin waa inaad ka shaqaysan nabadgelyada dadka dariska waxaadan iimaansato salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقة وحالي هذا سهركين وحان كنا لهاي كولومبوس أوهايو وحان كمي هاي شاليدا رير SSC وحان هالكن همباليا وقدريا ان خاتمة ستيت اوف صوماليا وانو وحبدن انو سوغيني اني نور دالاتو ما تفرحد وين بينوتا هاي اني نور دالاتي ودن كيجينو انو حرنو يهي oo aanu kulligayo wada sugaynay ayaa maanta noo dhacday aad iyo aad baad u mahadsantihiin halkan waxaan kaleeto ka salaamayaa jamaahiirtii hirgelisay in ay wadankii noo xoreyso wixii dhintayna ilaahay ha u naxariisto wixii hadeerto noolna waxaan leeyahay hambalyo idin kala aantiin tan may suurtageli lahayn waxaan kaleeto halkan uga hambalyaynayaa jaaliyadda oo aad xil weyn isaga saartay inay hirgeliso xoreynta gobolada SSC iyo waxaan kaleeto u mahadnaqayaa Soomaalida Soomaali weyn baan u mahadnaqayaa waxaan kaleeto u mahadnaqayaa reerka daarood la yiraahdo oo ka qaatay qayb weyn taageero ayna siiyeen meel walba ay joogaan naga siiyay taageero inaanu goboladayadii dib ula soo noqono
waa ku mahadsantihiin kulligiinoo dhan waad ku mahadsantihiin sida aad maaragtay aad noo qabateen waad mahadsantihiin farxaddayada lama soo koobi karo warahmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa jamaahiirta qalasyada aad iyo aad baan u salaamayaa ragga furinta jooga aad baan u salaamayaa u hambalyaynayaa waxaan leeyahay guulaysta garabkiinaanu nahay guulaysta dhammaan garaadada iyo ummaddana waa wada salaamayaa SSC waxaan leeyahay isku duubnaada midooba ulya diirkeed ahaada bidix iyo midig ahaada yaa laydin soo dhexgelin muuse juudaan iyo SNM waxaan leeyahay waa jabayaan aad bay u jabayaan inta hadhayna waa la israacinayaa muuse juudaan ha jabo cadowgu ha jabo cadowga SNM ha jabo cadowga SSC ha jabo takbiir allahu akbar bismillaahi raxmaani raxiim annagoo ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Columbus Ohio carrigaas dalka Mareykanka waxaan hambalyeynaynaa guddiga 33 garaadada dhammaan dadka Soomaaliyeed ee reer Sool kuwaas oo mataqaana halgankii ku guuleystay waxaan leenahay walaalaheena reer Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa inay nabadda ka shaqeeyaan qabiilna qabiil Soomaaliyeed ma gumaysan karo Ingiriis baa gumaysta ahaa asagana waa la iska dhiciyay 22 sano ayaa dagaal ay kula jireen daraawiish iyo sayid maxamed cabdullaahi xasan boqol guuradii ayaa hadda lagu jiraa 50,000 ilaa 100,000 oo nin ayaan ku weynay si aan iskaga dhicinno cadowgii reer Yurub qabiil Soomaaliyeed qabiil kale ma gumaysan karo dhulkiisana kama qaadi karo marka waxaan leenahay walaalayaal dadka aad beenta ku akhrineysaan 32 sano joojiya oo xaqiiqada runta u soo laabta Soomaali waa dad walaalaa meel kale tagi mayso jamhuuriyaddii iyo xamar na iskugu kaaya keena midda kale muuse waxaan leeyahay xaqdarradii shalay oo asagu ka dagaalamay inuu maanta dad ku sameeyo ama SNM ay ku samayso waa wax run ahaantii aad iyo aad looga xumaado shalay cadaalad darraad sheegatay cadaalad darradii aad ka dagaalantay inaad damcdo inaad dad Soomaaliyeed kula kacdo oo aad banaanaysato salaamu calaykum dhammaan waan salaamayaa jamaahiirta reer Khaatuum meel kasta joogtaan caawa xaflad aad u weyn baa meeshan ugu qabsoontay ilaahay maadiis weeye waxaan leeyahay dhammaan jamaahiirta guul baan leeyahay meel kasta joogtaan dhalinyarada reer dhulbaanto waan taageersanahay aad baan ugu faraxsanahay guusha weyn ka soo hoydeen gooja cadde iyo laasaxanood meel kasta waan salaamayaa dhammaantiin bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Burhaan Cali Geelle maanta anu hadal badan meeshan ku jeedin maayo waxaan leeyahay celebration baa ku jirnaa dabaaldeg baa ku jirnaa hal dabaaldego hal baashaalo jimcahan jimcihiisii waxay ahayd maalin taariikh mudan maalin la xusi doono ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtay xusi doonaan bay noqonaysaa insha Allah waxaan leeyahay guul iyo gobonimo Soomaaliya oo dhanna guul iyo gobonimo bismillaah thumma salaatu wa salaamu ala rasuulillah waxaan u mahadcelinayaa TV Ohio oo runtii si jaaniskan anigoo magacaygu la yiraahdo Xuseen Ibraahim waxaan ka mid ahay jaaliyadda ku nool Columbus Ohio waxaan ka faa'iideysanayaa fursadda qaaliga oo naga faa'iideysanayo guushii aanu gaarnay taariikhiga ahayd ilaahay baan mahaddaas u sugnaatay maato la gumaadayo oo madaafiic la dul fadhiyo oo gurigoodii la leeyahay annaga idinku xukumayna baa ilaahay nooga heeliyey dulmiga ilaahay nooga heeliyey waxaan leenahay ummadda walaalaheena dariskaan nahay annaga dulmigiina dooni mayno dulmiga ha doonina idin dulmin mayno meesheedanu joognaa idinkuna meeshiina iimaansada waxaan kaloo rabaa inaan mar saddexaad u mahadceliyo saaxiibka Cabdikaafi wari Cabdikaafi iyo groupkiisa aad baan u mahadsantiin oo channelskan quruxda badan siiyay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Nuur waxaan markii hore rabaa inaan u mahadceliyo Ohio Somali TV oo fursadan na siiyay aad ku wanaag badan inaan ka dhibana afkaartanada hal qodob baan rabaa inaan ka hadlo qodobkaas oo ah in dib u dhiska magaalada ama maamulka Khaatuum in laga qayb qaato waad ogtiin magaalada waa burburtay dhulku waa burburay wixii ka jiro adeegay waa burburay dib u dhiska laga qayb qaato dadweynaha intaas kula talinaya dawladda federaalka Soomaaliya waxaan kula talinaya waliba madaxweyne Xasan waxaan leeyahay fursad labaad baad haysataa maalinkii la xasuuqay dadkan guriyada lagu xasuuqay waxa tiri hal la heshiyo nin gurigiis lagu dilay afkaar cad kama aadan dhihin ree Khaatumo ama ree Sooli Sanaag qabiil iyo istiraac looma dilayna calanka buluuga lagu dilay oo aad mas'uul ka tahay u dhaaratay marka hadda fursad labaad haysato waxa weeye inaad meesha booqato maamulkan aad wax ka dhisto taasaan kugula talinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii aad baan uga mahadcelinayaa Ohio Somali TV xafladan maanta ay ka soo qayb galeen oo celebrationkii ama guushii Khaatumo state iyo dadka reer Khaatumo ay ka gaareen
dagaalkii muddo badan soo socday iyo halgankii xaqa ahaa waxaan rabaa marka hore halkaan anoo fursaddan ka faa'iidaysanayo wakhtigoo aad u yar inaan aga faa'iidaysto inaan marka hore aan u hambaliyay dhammaan dadka reer SSC reer Qaatumo sida gobonnimada iyo geesinimada leh ee aga dhidhiyeen dulmigii iyo duulaankii qaawanaa ee soo qaaday jamhadda SNM runtii waxaan rabaa inaan dhaa marka hore waa mahadsantihiin hambalyaana leeyahay inaad maanta ka guulaysteen dulmigii intaa haddaan ka tago waxaan rabaa reer Qaatumo laba talo inaan siiyo talada koowaad midnimadiinna iyo wadajirkiinna waa waxa maanta halkaan ku soo gaarteen waxaa u baahan tihiin midnimadiinna iyo wadajirkiinna inaad mar walba ka shaqaysaan meeshaa maanta joogtaanna waa ka sii fogaan doontaan waxaad tagi doontaan meel masiirkiinna iyo waxaa idinka aad rabtaan oo indhihiinna ay rabaan waxaan ahayn aysan ka shaqaynin dhulka aad degantihiinna SSC taa waxaan rabaa dadka reer Qaatumo inaan siiyo waxaan kaloo rabaa inaan ugu daro in ay aad iyo aad ay ugu dadaalaan inay dhegaystaan ka dambeeyaan talada iyo hawsha socoto iyo dib u dhiska iyo nidaamka iyo maamulkana ay ga dambeeyaan dhaqankooda maxaa yeelay ummaddu haddii aysan bulshada aysan dhaqankooda iyo hoggaankooda ula amrigooda haddii aysan dhegaysanin mar walba halgankay galaan wuxuu noqdaa mid guuldareysto oo meel cidlaa ku soo dhaca anugu muuse mar rabo inaan wax idhaahdo muuse iyo dadka hadda soo bannaanbaxaya bannaanka taagan ee aad mooddo inay waalan yihiin oo miirka aysan qabin ayagoo hal mid baan odhan lahaa muusow wax fasax iyo waxaa fasax waxba kuu tari mayso waxaa wax kuu taraayo sharaf iyo qiimna kuu noqonayo inaad aqoonsatid dhulka adiga aad deganta iyo deegaankaaga meeshuu xadka ku ah intaa xaqa u leedahay intaa deegaan ahaan aad degantid inaad aqoonsatid wixii intaa ka badan hadda khasaare wuxuu kugu dhacay ummadda islaamka iska dhaafe hataa gaaladii baa ka yaabtay ummadda ilaah oo dhan baa ka yaabtay wuxuu kugu dhacay wax hore loo arkay ma aha marka waxaan ku soo gabagabeyn lahaa dadka reer Qaatumo oo idil waxaa aad aga shaqaysiin oo ku dadaashaan midnimadiinna iyo wadajirkiinna taladiinna idinkaa iskale yaana cidna tala idiin yeelinin waxaa idinka doonaysaan waxaan aysan ka shaqayn Somali State waa maasantiin maanta xafladeena ayaan Columbus ku samaysanay ma sha Allah laba arrin baan meesha rabaa inaan uga hadlo mid ay tahay dulmiga ay Soomaaliland ku soo qaaday dadkan Sool sanaagi cayn dulmigaasna Ilaahay mataqaana dadkii waa waafajiyay marka dadka aqli inay isticmaalaan oo arrimahan fidnada ay wadaan ay joojiyaan mid labaad dagaalkan iyo waxyaalaha la ololeynayo qof wax ku qaaday ma jiro marka waxaan dhihi lahaa walaalayaalow wanaaga ka raaca mid labaad dadka muslimiinta oo dhan waxaan dhihi lahaa arrinkan inay ka wada hadlaan oo wax laga yiraahdo insha Allah wa salaamu alaykum assalaamu alaykum dhamaan waxaan salaamayaa ummadda shacbiga ee Columbus ee meesha soo timiday dhamaan waxaan salaamayaa oo kale Khaatumo State waxaan leeyahay Khaatumo State ha noolaato weligeed cadawga ha iska jirto walaalahayga aad baan u jeclahay maanta shucuubteeda lama soo koori karo ma sha Allah aad baan u faraxsan assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halka waxa ugu hambalyeeynaya dhamaan Khaatumo State dunida dacalada meel kasta joogta waxa leeyahay hambaliyo gobonnimadii aan raadinaysa waa hesheen midda kaliya maanta loo baahayay waxa weeyaan war rag in la isu duubnaado in waxa weey raggu de gacmada jirbay Soomaalidu waxay taray wax ku gooyaanay ina maanta mid noqotaan oo midnimada maanta Ilaahay idin mideeyay aad barteeda ka siistaan oo maamulka aad dhisateen aad wanaag iyo mataqaanaayay kalgacayl iyo soo dhaweyn iyo walaalnimo wax wada wadaagtaa baa idin rajeenayaa mar labaad iyo mar saddexaad isu duubnaado ay leeyahay hambaliyana waa dilaahi wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh